Rafta badan ku soo dhawaada janaalka dhacdooyinka dunida Tube oo uga bartaan barnaamijyo xiiso badan. Waxa ka dhacaya dunida Islaamka ayaa noqonaya la yaab iyo amakaag sida qaraxyo isdaba joog ah iyo filim waa mar walba dhaca. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe-ta noo saar, sidoo kale like-ta hanaga ilaawin si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Iyadoo oo baaritaankii Lubnaan ee ku saabsan burburkii ka dhacay Beirut uu sii socdo, saraakiisha ayaa tilmaamay inay suurtagal tahay markab weyn oo bacrimin beeraha ah oo mas'uuliyiintu sheegeen in lagu kaydiyay dekedda Beirut iyada oo aan taxaddar dhinaca amniga ah laga helin sanado. Inkasta oo ay jireen digniino ay bixiyeen mas'uuliyiinta maxalliga ah, doonida oo loo yaqaan MV Rosas ayaa ku sii jeeday dalka Mozambique, laakiin wuxuu ku istaagay Beirut dhibaatooyin dhaqaale awgeed, taas oo sidoo kale abuurtay xasilooni darro. Markabkii Ruushka iyo Yukraaniyiintii markii ay soo degeen, markabku weligiis kama tegin dekedda Beirut, sida uu sheegayo agaasimaha kastamka Lubnaan Badri Daahir. Inkasta oo isaga iyo kuwa kaleba ay digniino u soo jeediyeen in xamuulku u dhigmo bombo dul sabeynaya, waxaan ka ognahay qaraxii Beirut khatarta ba'an ee soo food saartay walxahan kaydsan ee xaaladaha cimilada aan ku habboonayn. Waxaan mar labaad ku celinayaa codsigeena maamulka dekedda iyo inay dib u dhoofinta alaabaha si dhaqso leh u xajistaan amniga dekedda iyo kuwa ka shaqeeya. Waxaa madaxweynihii ka horreeyay Tawfiq Mehri wuxuu ku qoray warqad 2016 oo uu kula hadlayay xaakim ku lug lahaa kiiska mas'uuliyiinta Lubnaan. Uma aysan sheegin MV Rosas inay yihiin isha walxaha ugu dambeyntii ku qarxaday Beirut Talaadadii, laakiin Ra'iisul Wasaare Xasan Diyaab wuxuu sheegay in qaraxii bahalnimada ahaa uu ka dhashay 2750 tan oo maadada loo yaqaan ammonium ah. Wuxuu intaas ku daray in maadadaasi ay 6 sano ku kaydsanayd bakhaar ku yaal dekedda, iyada oo aan laga qaadin tallaabooyin nabdoon, khatar gelinaysa amniga muwaadiniinta dalka Lubnaan. Madaxa amniga guud ee Lubnaan ayaa sidoo kale sheegay in aalad aad u qarax badan la wareegeen sanado ka hor, isla markaana lagu kaydiyay bakhaarka oo socod yar daqiiqado u jira kasoo dukaamaysiga Beirut iyo meelaha lagu caweeyo. Qaraxii weynaa ee Talaadadii oo ruxay caasimadda ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 135 ruux, halka 5,000 ay ku dhaawacmeen. Arbacadii, wasiirka warfaafinta Lubnaan Manaal Abdal Samad Najed wuxuu sheegay in ay jiraan waraaqo iyo dukumiintiyo ilaa 2014 muujinaya jiritaanka xog isweydaarsi ku saabsan agab ay la wareegeen mas'uuliyiinta Lubnaan. Waxay u sheegtay telefishinka dowliga ah ee Jordan Al-Mamlaka in isweydaarsiga oo loo tixgeliyo mid la xiriira sababihii sababay qaraxii dhimashada Beirut. Markii lagu weydiiyey khadka taleefanka haddii ay jiraan wax hordhac ah oo ka soo baxay baaritaanka la xiriira waxa sababay qaraxa. Halkan waxaa inoogu eg barnaamijkeennii aan uga hadlaynay qaraxii baanaa ee ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Islaamiga ah ee Lubnaan. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.